gabadhan isbitaalkan ay timaaday si loo daaweeyo iyadoo la hadlayso dhakhtaradii daaweynaysa ayaa waxa uu imaanaya dhakhtarkan kale oo isbitaalka ka shaqeeyo. dhakhtaradii wuxuu ku dhahaa waxaa kuu yeerayo dhakhtarka naga sarreeya hana ka welwelin qoftan aad la joogtid anaa xaaladeeda la wareegi doono. iyaduna waxay ku dhahaysaa waa kaxuma iga raali noqo bukaankayga makugu soo wareeji karo sababtoo ah anigaa waraystay waana ogaaday sida loo haayo. laakiin maadaama uu ka sarreeyo dhakhtaradan wuu ku amraa in ay sidaa samayso iyaduna ugu dambeyn way ogolaanaysaa oo meeshii isaga soo tegay. markii ay dhakhtaradii baxday intuu gabadhii u imaado wuxuu ku dhahaa qoftan shidan maxay isbitaalkeena ka soo doontay sidee lagu hayaa macnaha xaggay ku xanuunayso. waxay bilaabaysaa in ay u sheegto sida loo haayo kadib wuxuu ku dhahaa ka welwelin waxaan ahay dhakhtarka ugu wanaagsan isbitaalkan oo dhan sidaas darteed gacmo wanaagsanaa ku jirta. waxay weydiinaya marka ma heli karaa haddii ay macquul tahay dhakhtarad gabar ah si ay ii daaweyso. caadi waaye oo dhakhtaradu isku mid waaye laakiin xoogaa dhinacaasaa ku kalsoonahay. midkan markii ay sidaas gabadha ku dhahdo wuxuu u malaynaya in ay xirfadiisa yaraysanayso kadib mar labaad ugu soo celinaya inuu yahay isbitaalkan qofka ugu wanaagsan. ugu dambeyn iyadu weydiinaysaa inuu midkan daaweeye kadib wuxuu bilaabaa inuu ka cabsiyo si ay isbitaalkan ugu tagto oosan qof kale u daaweyn. intaas keliya maahane waxyaabo aan caadi ahayn oo aan loo baahnayn oo ka sheekeynaa. intuu soo baxay isagoo meeshaan marayo ayaa dhakhtaradii kale waxay weydiinaya aawo bukaankii aan kaaga soo tegay isaguna intuu ku dhaha dhakhtar kale u dhiibo oo meeshii isaga tegaa. iyadu midkan hadalkiisa ma ku qancayso intay soo baxday gabadhii u imaanaya waxay arkeen marka iyadii oo dharkeedii diyaarsatay oo isku diyaarinaysa in ay baxdo kadib waxay weydiinaya wax walba caadi soomahan halkay u socotaa. intay la fadhiisatay waraysanay kadib waxay u sheegaysaa inuu dhakhtarkii hore si xun ula dhaqmay. dhakhtaradu markay hadalkaas maqshay way xanaaqi kadib taleefankeedii soo baxsanee gabadhiina waxay ku dhahaysaa waxaan wacaa isbitaalkan dhakhtarka iskale marka si wada jira waa inaan ninkaas dembigiisa ugu caddaynaa. markii uu taleefka ka qabto waxay ku dhahaysaa waxaan rabaa in aan wax yar kula hadlo laakiin isla markii isagiyaa imaanayo wuxuuna aqoonsanaa gabadhii bukaanka aheed oo la daaweynayay. wuxuu bilaabaa marka inuu gabadhan ka waraysto xaaladda aabaheeda. dhakhtaradiina waxay dhahaysaa sigoo horta labadiina ma istaqaaniin kadib wuxuu ku dhahaa waa isnaqaanaa oo gabadhan waxaan u ahay adeero walaalkayaa dhalay. markii uu gabadhii oo adeerka u ahay ka soo jeesto dhakhtaradii wuxuu ku dhahaa wixii muhiimka ahay oo aad ii sheegi rabta maxay ahaayeen. iriddaa waxaa ka soo gelaya marka midkii dhakhtarka ahay oo iska kaftamaayo wuxuu arkaa in uu joogo ninkii isbitaalka iska lahay. wuxuu ku dhahaa iga raali noqda maadaama aan idinka qasay wixii aad ka sheekeynaysiin haddana waa iska baxa. laakiin isagoo sii baxayo ayaa dhakhtaradii kale waxay ku dhahaysaa istaag ha bixin waxaa jira waxyaabo muhiim ah oo aan ka sheekaysanayna oo la raba adiguna inaad maqashid. midkii booska ahay oo isbitaalka iska lahay kuwan wuxuu ku dhahaa waxaad iga qarqarinaysiin maxaa waaye ma ii sheegtiin. dhakhtaradiyaa waxay u sheegaysaa in ninkan dhakhtarka oo dadka bukaanada qashqashaado. isagiyaa ninkii booska ahay wuxuu ku dhahaa qoftan waxay sheegaysa oo dhan waa been ma waxaad aaminaya ninka dhakhtarka qalliinka ah oo isbitaalkaaga ugu wanaagsan mase gabar aan la aqoonin oo rabta isbitaalkeenna inay isku qasto. midka booska midkan kale qacow ka yeersiinaa wuxuu ku dhahaa sidaas hadaytaa waxaan aaminaa gabadha aan adeerka u ahay. waan ogaay in aad adigu sidaas u dhaqmaysid waxaana jiro dad bukaano ah oo adiga kaasoo dacwooday. gabadhii uu adeerka u ahayna waxay dhahaysaa ninkan booskiisa waxaa u qalma gabadhan dhakhtarada maadaama ay shaqadeeda riski u gelisay ninkan si ay u qabato. boosku midkan wuxuu u sheegaya inuu isbeddel ku samayn doono isaga shaqadiisa. wuxuuna intaas u raacsiinaa waxaad haysataa 20 daqiiqo si aad alaabtaada oo dhan isbitaalkan uga qaadatid oo aana uga baxdid. dhakhtaradiina markii booskii cusbaa loo magacaabay ninkii booskeeda ahay waxay u sheegaysaa inay marnaba hoos u dhigi doonin. muuqaalkanna intaana ku ekaay ee leegnosa. wiilkan shilow intuu galay oo waqti aad u badan isbitaalkan yaalla kadib aabihiisa hooyadiis wuxuu ku dhahaa wiilkan qarash iyo waqtiba way nooga baxeen. marka waa inaan isaga tagnaa oo danaheenna kale aan qabsannaa intaas ka badan ma sii sugi karnee. iyaduna intay xanaaqday waxay ku dhahaysaa oo ma waxaad ka wadaa wiilkaaga isbitaalkan uga tag weliba isagoo baaraleysa oo soco karin. isla markiina dhakhtaradana intay u timaaday waxay ku dhahaysaa qorshihiinii lacag la'aanta ay wuu dhammaaday marka waa inaad lacagta iska bixisiin su'aal haddaa qabtiinna nambarkaas waa inaad la xiriirtiin. aabbuhu markuu arkay in lacag badan laga rabo wuu sii xanaaqa ugu dambeynna go'aanu intuu qaato hooyadii wuxuu ku dhahaa cunugan bis waaye hadda kadib ma u baahni. iyadoo ku dhahaysa hanaga tegin ayuu dhegaysanaya isbitaalkiina wuu isaga tegaa. kadib wiilkii intuu soo kaco hooyadiis wuxuu weydiinaa qayladii aan maqlaaya maxay ahayd iyaduna waxay u sheegaysaa wax walba oo iyada iyo aabiis dhex maray. 15 sano kadib aabbihii waa kana wiilkiisii iyo xaaskiisii ayuu dib ugu soo laabtay. waxay weydiinayaan marka meeshan maxaa ka samaynaya maxaa soo doontay. wuxuu ugu jawaabaa joornaalka ayaan ka akhristay in ay idin kala kacday oo aad taajiriin noqoteen. meeshaana waxaan u imid in aan idinka raaligeliyo wixii aan sameeyey hamiinkaas iyo go'aankii aan keligay iska qaatay. hooyadu midkaan raaligelinta ma ka aqbalayso laakiin wiilkiisa wuxuu ku dhahaa haddii ay sax kaa tahay raaligelinta aad sheegaysid caawa inagaa noo casuuban tahay. saacaddu markii ay marayso 8:15 waa inaa xafiiskayga iigu timaadaa kadib meeshii ku kala tegayaan. xooga kadib odaygu isagoo xaafadiisa u sii socda ayaa waxaa qabanaya nin lacag diina ku lahay wuxuuna u soo kiriistay ninkan feeraha weyn. wuxuu ku dhahaa adiga maalin walba oo aan ku qabto waxaad igu dhahdaa lacagtaada waa ku siinaa laakiin maanta ma kala baxayno. isaguna wuxuu ku dhahaa aamin lacagtaada waa ku siinaa wiilkayga ayaa lacag helay oo ay u kala kacday marka waa inay isugtaa ilaa cawadi laga gaarayo. ayaguna ma ka yeelayaan hadalka oo uu sheegay ee intay garaacaan waxay ku dhahayaan hadda waa kaa yeeli karnaa. markii waqtigii la gaarana wuxuu u imaanaa wiilkiisa iyo xaaskiisa oo meeshii ku sugayo. wiilkiisa wuxuu weydiinaa
marka sanadihii aad naga maqneed oo dhan maxaa qabanaysay? wuxuu ku dhahaa sanadadaas aan idinka maqnaayo dhan si aadahan u shaqaynaya si aan lacag badan u sameeyo. ugu dambeynna waa ku guulaystay oo kambanigaygu lacag badan uu shaqeeya, laakiin maalmaha kamida wax walba way iga burbureen. kadib wiilkiisa wuxuu u sheegaa markii uu ka tegay 15 sano ka hor in isbitaalkii laga soo bixiyey sidoo kale gurigoodiina laga bixiyey. sidaa darteed bannaanka ayaan seexan jirnay inaga oo noqonay dad derbi jiifyaal ah. markii aan dadka wax weydiisanana waxay noo malay jireen inaan curyaamo iska dhigayno si aan lacag u helno. bilooyin kadib hooyaday waxay ku guulaysatay in ay shaqo hesho iyadoo maqaayad ka shaqaynaysay. 5 sano ka horna anigu waxaan ku guulaystay in aan aasaaso kambani aan anigu leeyahay. kambanigayguna wuxuu caawinayay dadka masaakiinta oo ku jira xaaladii aan anagu soo marnay. sidaa darteed shirkado badan ayaana taageeray markii ay arkeen inaan wanaag ka shaqaynayno. marka xaaladahaas oo dhan markii aan soo marayna maadana soo raadin ee maanta maxaa noo soo raadisay? odaygu wuxuu taagan yahay aniga keliya waxaan idinkugu imaaday in aan lacagni ka helo weliba waan ii soo celina. kadib hooyadii intay soo booday waxay dhehaysaa waan ogaay in aadan wax kale u soo laaban oo aad keliya rabtay inaad anaga caawimaadna weydiisato. isaguna wuxuu dhahaa waxaan caawimaad maahan oo aniga caawimaad man weydiisanayo ee waxaan waa maalgashi, lacagtiina waa idiin soo celinaa weliba iyadoo laba jibaara. wiilku markuu arko sidoo aabihiis u hadlayo shaqaalayaashiisa wuxuu ka codsanaya inay bannaanka u bixiyaan, iyaguna bannaanka usoo tuurayaan. nasiib xumadiisa markii bannaanka u soo baxana waxaa qabanaya ninkii lacagta ku lahay iyo ninkii uu soo kiristoo feeraha weynay. muuqaalkaana intaanu ku ekaayay hadda halkaas soo gaarta leegnoo saar. nimankan dhakhtarada ah iyagoo ninka odagaa daaweynaya midkan wuxuu arkaya inay saacad kala kacsan u xiran tahay. midkaana williamaa lagu magacaabaa dhakhtar balastuug waaye wuxuu ku fikiraya inuu ninka odagaa saacadda ka furto. william saaxiibkiisana ninkan in sidaa lagu sameeyo ma ku raacayo. odagiina waa kana intuu soo kaco william gacantiisa qabsado wuxuu ku dhahaa waa mahadsan tahay. ninkan odagaana hurdadiisii uu ku ceshanaa. williamna wuxuu taagan yahay ninkan wuu ku faraxsan yahay saacadda inaa ka qaato. soo maadan arkin inuu ii mahad celiyo u soo kacaye. xoogaa kadib william wuxuu soo gelaa qolkan si uu saacadda isugu tijaabiyo. saacaddii uu dhinaca gadaala ka fiirinaa wuxuuna ku arkaa inay ku qoran tahay qiimaha wakhtigaaga. williamna qoraalkaas wuu iska indhitiray kadib saacaddii uu xiranaa. hal marow wuxuu arkaa in saacadda wakhtigeeda oo si xawaaro leh u socdo. kadib william wuxuu isku dayaa inuu wakhtiga joojiyo. isaga oo isku dayaya inuu wakhtiga joojiyaa waxaa u imaanaya saaxiibkiisna intuu yaabo wuxuu ku dhahaa wejigaaga maxaa ka qaldan. intuu miyaarad soo qaato ku aadinaa. williamna wuxuu is arkaa inuu duqoobay. kadib william saaxiibkiisa wuxuu weydiinaa aniga hadda maryoona. ugu dambayn wuxuu ogaanaa inay saacaddan ka dambayso inuu duqoobo. saacaddiina inuu gacantiisa ka furo wuu awoodi weynaa. kadib wuxuu dhahaa waxaanoo dhan waxaa ka dambeeyey ninkii odaga ahay. qolkii ninka odayga ahay markuu yimaado wuu ka weynaa wuxuuna ku arkaa ninkan kale. wuxuu weydiinaa nin oday ah oo meeshaan jiifa ma aragtay. midkaana william uu jawaabayo wuu iska dhigatiraa. xoogaa kadib intuu ku soo jeesto wuxuu dhahaa qofkaa raadinaysid aniga waaye. williamna waa kana intuu yaabo wuxuu dhahaa maxaa ku hadlaysaa? adiga haddaad tahay saacaddaada iga qaado. midkaana wuxuu taagan yahay maya baxarkaas inaa gala mar labaad ma rabo. hadalkaygana inaa maqlaysid ma u malaynayo sababtoo ah dhegahaaga way sii duqoobaya. waxaana kaaga mahad celinaa maadaama dhibaatadan iga badbaadisay. williamna wuxuu dhahaa ugu yaraan saacaddan siday u shaqayso ii sheeg. midkaana wuxuu u sheegaa inuu shala subax saacaddan nin odaya ka soo xaday. markii uu saacadda xirtana inuu nin odaya isaga isku bedelay. wuxuuna ku dhahaa haddii aan aniga dhinto adigana hal maalina iga dambayne. anigana hadda waa ku sii salaamaa baxarkaasna sidaa isaga badbaadi leed adaa lagaa rabaa. william saaxiibkiisna wuxuu dhahaa been mukuu sheegaya meeshaan wax baa ka qaldan. williamna wuxuu dhahaa maxaa qaldan itus. raajadiina william markuu si fiican u fiiriyo wax dhan ma arkaayo. kadib saaxiibkiisa intuu ookayaalihii ka qaato raajadii fiirinaa wuxuuna ogaanaa maskaxdiisa inuu sidoo kale sii duqoobayso. ugu dambayn william go'aan uu qaadanaa saacaddii wuxuu ku garaacaa birtaan. kadib wuxuu ogaanaa mar kasta oo saacaddan meel lagu dhufto inay xawaareeda sii kordhaayo. haddana waa kana wuxuu soo qaadanaa birta miyaaradaha lagu jebiyo. kadib saaxiibkiisa wuxuu u sheegaa inuu bahashaan qabsado uu saacadda jebiyo isagana uu kursigan gacanta saaranayo. saaxiibkiisna wuxuu dhahaa midaan lafahada ku jebi karo maa ka joogtid. asagana wuxuu dhahaa war lafaha maana waqtiga ugu socday bahasha jebi. saaxiibkiisna go'aankiisa wuu ku raacaa wuxuuna isku diyaarinaa inuu saacadda jebiyo. iyada oo saacaddii la jebin rabaa hal mar william wuxuu arkaa inay saacaddii gacantiisa ku qarsoontay. arrintaasna aaduu ugu farxaa laakiin hal mar wuxuu arkaa inay gacantiisa kale saacaddii ku xiran tahay waqtiguna uu aad u ordaayo. ugu dambayn william qorshow keenaa wuxuu dhahaa saacaddan qofaa ku qaamayna. saaxiibkiisna go'aankaas uu ka diidaa wuxuu dhahaa wax qaldanaa sameyne. williamna wuxuu dhahaa maalayacnigaa ku hadlaysid iga jooji inaad duq sii noqonayo ma ujeedido. aniga hadeertaan waa baxa waxaana rinaa qofaa saacaddan siiyo. qaybtii koowaad waxay noo mareeday William oo dhahayo waxaan raadinaa qof aan saacadan siiyo haddii aad soo daawana hadda soo daawo. Williamna markii uu banaanka u soo baxay wuxuu arkaa kuwa banaanka fadhiyo kadib wuxuu dhahaa saacadan hadda ka heshay qaado aniga ku siiyay. kuwana way ka diidayaan haddana wuxuu arkaa nin kale oo meeshaan fadhiyo ninkan isagana uu ka diidaa. gabadhan dhakhtarada ah oo saacadii sanka ka gelinaa iyadana way diiday. xoogaa kadib William wuxuu arkaa inay timihiisa sii gogo'ayaan isagana uu sii duqoobayo. habeenkii markii la gaaray dadkii dhan ay isbitaalka ka tageen William saaxiibkiisna uu shaqada ka sii baxayo ayuu wuxuu arkay
inuu saaxiibkiis bannaanka jiifo. Williamna saaxiibkiis wuxuu u sheegaa inuu dadka dhan saacaddii ku tijaabiyey, iyagana ay ka diideen, isagana jaaniska keliya haysta inuu yahay inuu dhimashada sugto. wuxuuna ku dhahaa weligay ma arkin qof diidaya saacad dahab ah. William saaxiibkiisna wuxuu dhahaa halkii aad raadin lahayd qof aa saacaddan siiso, taas beddelkeeda waxaa isku daydaa inaa wax wanaagsan sameedo. Williamna wuxuu taagan yahay haddii ay sax kaa tahay oo aad iga taxadiraysid adiga saacadda ma iga qaadatid. saaxiibkiisna markuu hadalkaas maqlo intuu xanaaqo asagoo xanaaqsan meeshii isaga soo tagaa. Williamna hal mar wuxuu arkaa in isbitaalka la soo geliyey nin oday ah oo xanuunsan, isagana fursad gaado ahay, isla markii qorshaha ku soo dhacayo wuxuuna soo aadaa dhinaca ninkii odayga ahay. gabadhii ninka odayga la socoto wuxuu ku dhahaa orod dhakhtar soo raadi, aniga ninka odayga la sii joogaye. Williamna ninka odayga gacantiisa inta soo qabto wuxuu isku dayaa inuu saacadda isaga furo. ninkan kale odaygana wuxuu leeyahay yahay ninka saacadda siinayo. xoogaa kadib ninkii odayga ahay oo xanuusnaa wuu miyir daboolmaa. Williamna isla markii ninkii odayga ahay gargaarka degdeg ah u sameynaa. gabadhii odayga la socotana waxay u soo wacay William saaxiibkiisa oo shaqada ka sii bixi rabay. ninkii odayga ahana gargaarka degdeg ah markii loo sameeyay wuu soo kacaa. William saaxiibkiisana wuxuu arkaa in William sidiisii hore oo dhalinyarada ahayd ku soo laabtay. Williamna arrintan aad uu farxaa, kadib wuxuu raadinaa saacaddii gacanta u xirneed wuuna ka weynaa. isaga oo miyaarad isku fiirinayo oo isdaawanaya sida u ekay ayuu hal mar wuxuu arkaa saacaddii oo dhulka taalo. wuxuuna fahmaa qoraalkii saacadda dhinac gadaala uga qornaay oo ahay qiimaha waqtigaaga. adigana kadib markii aad fahantay qiimaha uu waqtigaagu leeyahay muuqaalka like saare.